maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge maayirka xigeenka Khadar Axmed Cumar xogayaha dowladda hoose ayaa ku labistay dareeska gaarka loogu talagalay waaxda cashuuraha ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa iyadoo si rasmi ah maanta u bilaabmay ololaha dhanka cashuuraha ayaa waxaa sidoo kale ku helinayay shaqaalaha waaxda cashuuraha ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa shacabweynaha Hargeysa maanta insha Allah waxaynu bilaabaynaa inaynu shacabkeena u saamaxno inay cashuurtii ku baaqatay iska bixiyaan intaan sanadku dhamaan shacabku waxa doonaysaa in wax lagu qabto waxaad rabtaa in magaalada Hargeysa isbedesho laakiin ay laawin wax lagu qabanayaa inay cashuurtaada tahay saaka waxa loo dadaal galayaa in cashuurta shacabku iska soo bixiyaan si markaa haddii Ilaahay yiraahdo cashuurtii aad soo bixisay wax lagu qabto ummadaha adduunka aynu la tartamaynaa qofka lagama baryo inuu cashuurta bixiyo qofka ayaa og in mustaqbalkiisa iyo dalkiisuba inay dhismaan inay ku xidhan tahay inuu cashuurta bixiyo waanu mahadnaqaynaa shacabka wixii hore isaga bixin jiray cashuurta ee cashuur bixiyaasha ahaa waxaanu filaynaa maanta laga bilaabo in shacabka reer Hargeysa ee magaaladooda jecel inay bilaabaan iyadoo aan kooxaha ama tiimamka ka socda dowladda hoose baan albaabkooda soo gaarin inay tagaan degmadooda oo ay iska soo bixiyaan cashuurta annaguna anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka iyo dhammaan shaqaaleynaha dowladda hoose iyo magaca dowladda hooseba waxa naga balana waxa soo bixiseen in la idin ilaaliyo oo waxay idin gaadho la idin ku qabto haddaad rabto in Hargeysa bedelanto ay dhisanto maanta adiga ayay kugu xidhan tahay waxay ku xidhan tahay inaad cashuurta iska bixiso qofka cashuur diidka noqda ama cashuurta bixin waaya sharci baa jira qabanaya qofka cashuur diidka waxaan codsanayaa qof kasta oo Hargeysa inuu cashuur bixiyo noqdo kooxahan intaanay soo gaadhin sakadaha iyo degmooyinka dhexdooda iyo guryihiinana waxaan filayaa xafiisyadii cashuuraha aynu ku bixin jirnay inuu ka dareemo in dadkuba ay imanayaan oo cashuurta iska bixinayaan gaadiidleyda magaalada Hargeysa tagaasida basaska iyo baabuurta kale ee cashuurta magaalada Hargeysa ay ku waajibtay iyagana waxaan u dirayaa baaq weyn in inta aanay iman wadada in lagu istaago oo adigoo rakaab sida markaa cashuurtii kugu waajibtay lagu weydiiyo wadada oo hadaad bixin weydana markaa gaarigana laga xareeyo adigana sharciga lagula tiigsado adigana waxaanu ka codsanaynaa weliba tagaasida oo istikaradii waa idin diyaar dhawaan waxaa la hubin doonaa gaariga taksiga ee magaalada dhexdeeda maraya ee Hargeysa gudaheeda ka shaqeynaya inuu cashuurtiis ka bixiyo oo stikerkii loogu ogolaanayay inuu taksiile ka yahay magaalada Hargeysa muraayadiisa ku dhisan tahay sida warqadda wadamarista oo kale ay muuqato muraayada gaariga ayaa leedii sameeyay stiker leediin marka tagaasida wanaagsan ee magaalada Hargeysa ka shaqeystaan waxaan filayaa xafiisyada cashuuraha lagu qabto oo dhan waxa idin taala stikerkii loogu talagalay marka cashuurta bixiso gaarigaaga inaad ku dhijiso muraayadiisa taas waxay idinka badbaadinaysaa shaambadii weyneed ee aan nabcaydeen ee dhinaca lagu dhifan jiray gaarigiina stiker fiican oo muuqanaysa oo kooban oo muraayada gaarigaaga kugu dhageysa ayaanu kaaga dhignay sidaa loo ilaaliyay lagu ilaaliyay baa la rabaa adiguna inaad noqoto dareen wanaagsan tagsile wanaagsan oo cashuurta markaa iska bixiya waxaynu eegaynaa waxa maalmaha soo socda iyo dadka reer Hargeysa oo cashuurta iska soo bixiya iyo annaga waa inagula xisaabtamaan cashuurtoodii wixii loo qabtay tiimamka hawsha galaya waxaan u rajeynayaa shaqo wanaagsan waxaanan ka farayaa inay dadkooda uga dhaqmaan sida ugu wanaagsan deganaan iyo akhlaaq inay qofka ay cashuurta weydiinayaan ku weydiiyaan qofka hooyada weyn aabbaha weyn dal la fahamsiiyo cashuurta ku waajibtay iyo tahay qofka cashuur bixiyaha waxa ku imanay tiimam markan xiran calaamadan sita ID card leh waxay sitaan buugaagtii cashuurta lagu qabanayo oo sharci ah
oo shaambadaha ay ku yaalaan haddaad aragto haddaad shakido qofka shacabka wuxuu la soo xidhiidhi karaa xafiiska dowladda hoose tiimamkuna way sitaan qalab ay ku caddayn karaan inay yihiin tiimamkii u shaqaynayay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa qofka waxaad u furan tiim baynaanu soo gaarin imaka uu iska sii tago oo cashuurtiisa bixiyo oo rasiidkii cashuurta uu ku bixiyo faylkiisa ugu jira albaabka marka lagu garaaco uu idhaahdo anuu cashuurteedu waan bixiyey waana kan Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa.